بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن داوداشا قيمها هي قدرتنا قمضان ميل والبو أد جوجتان halkani waa marqaati TV ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka waa 3 bisha June sanadka 2023 daawadaasha qiimaha naga mudan oo barnaamijkeena qaybtan waxaynu diradda ku saari doonaa hadii Allah awood leh uu raali ka noqdo Ukraine oo si wada dandaansiga Ruushka magaalooyin ka tirsan wadanka Ruushka oo madaafiic ay ku garaacday iyo caasimadda كيف أورمدو أي كبحثوا قيل الآن تمدحون السلانسكي وقدر الدنيا iyo cabsida xooggan ee reer Ukraine marka soo wajahday waxaan idinayna wararkii ugu dambeeyay ee arimaha wadanka Ukraine marka la soo dhawaado daawada fadlan haddaad nagu cusubtaan nagu soo biiro channelka subscribe noo saar furagan balaalka saad u noqoto daawadeena ugu horeeya mahadsanid barnaamijka aynu guda galinaa Ruushka waxa uu ku dhawaaqay in tiro dad ah ay dhimasho dhaawac ku noqdeen duqeyntii lala beegsaday gobolka Belgorod ee Ruushka iyo sidoo kale afar gobol kale oo xuduud la leh Ukraine iyadoo oo caasimadda Kyiv-na lagu garaacay mawjado cusub oo gantaale ah xilli madaxweynaha Ukraine Zelensky uu ka cawday dhibaato lama filaan ah oo soo wajahday dadka degan caasimadda gudoomiyaha gobolka Belgorod oo ku yaal xadka Ukraine Gladkov ayaa waxa uu sheegay in madaafiic ay soo rideen ciidamada Ukraine ay ku dhaceen waddo u dhow magaalada lagu magacaabo Chebkino oo qiyaastii 10 kilomitir u jirta xadka Ukraine waxaana la sheegay in halkaasi inta badan duqeyn lala beegsaday madaafiic soo dhacday ayaa ku habsatay gaari meesha marayay mid ka mid ah waxay ku dishay laba haween ah oo goobta ku sugnaa ayuu Gladkov ku yiri fariin uu soo dhigay Telegramka website-ka wasaaradda difaaca Ruushka waxa ay daabacday sawiro muujinaya qiiq aad u badan oo ka soo baxaya dhismayaal la degan yahay oo ku yaala magaalada Chebkino oo gobolka Belgorod ka tirsan waxaana gudoomiyaha gobolka uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba magaalada laga jaray korontadii iyo biyihii sidoo kale fiidmadii jimcaha laba kale oo rayida ayaa lagu dilay magaalada Sobolivka weerarka gantaal ee laga soo qaaday dhanka Ukraine waxaana halkaasi ku dhaawacmay 6 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah sida uu sheegay Gladkov sargaal Ruushka u hadlay ayaa xusay in 22 qof ay ku dhaawacmeen 4 gobol oo ay ku jirto xarunta gobolka Belgorod waxaana la duqeeyay dhowr magaalo iyo tuulooyin tan iyo xalay maamulka maxalliga ah ee gobolka Bryansk Kaluga Cruz iyo sidoo kale Smolnysk oo intooda badan xuduud la leh Ukraine waxay ku dhawaaqeen in ay la kulmeen duqeymo ama weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine xawliga weerarada lagu qaadayo dhulka Ruushka ayaa kor u kacay waxaana ugu dambeeyay weerar aan horey loo arag oo Moscow ay ka fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Donetsk talaadii la soo dhaafay marka laga soo tago duulaanka ballaaran oo hubeysan oo 22kii May la soo dhaafay lagu qaaday gobolka Belgorod oo ku dhow gobolka Kharkiv ee Ukraine geesta kalena haddii aanu eegno caasimadda Kyiv ayaa waxaa maalintii lixaad lala beegsaday mawjado cusub oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada sida wararku ay sheegayaan duqa magaalada Kyiv Vitaly ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday in ilaa hadda khasaaro xoogan aan la soo sheegin waxa uu yiri cadawga waxa ay adeegsadeen 15 gantaal oo nooca loo yaqaan cruise missiles iyo 18 diyaaradood oo nooca duuliyaha lahayn ee Iran ay farsameeyso ah waxa sidoo kale uu yiri in dhammaan bartilmaameedyada hawada ay burburiyeen diyaaradaha weerarka lagu soo qaaday iyo gantaalada saacado kadib ciidamada Ruushka ayaa xaqiijiyay in ay duqeeyeen oo ay garaaceen nidaamyadii difaaca hawada ee Ukraine oo daboolaya kaabayaasha muhiimka ah ee militariga habeenkii dhinaca kalena duqa magaalada Melitopol ee gobolka Zaporizhzhia ee dalka Ukraine Ivan Fedorov ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Ruushku ay bilaabeen inay ka baxaan dekedda Berdyansk oo ay ka maamulaan gobolka Koonfureed kadib markii uu qarax weyn ka dhacay waxa uu intaasi ku daray in ka bixista dekedda ay tahay mid degdeg ah maadaama ay ciidamadu ku howlan yihiin qaadista agabka iyo weecinta maraakiibta loo dhoofin jiray hadhuurka laga soo xaday Ukraine waa sida uu hadalka u dhigay geesta kalena madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu mar kale cabasho ka muujiyay dhibaatooyin ka jira hoyga loo qondeeyay dadka shacabka ah si ay gabaad uga dhigtaan duqeymaha culus ee ku soconaya dhanka Kyiv maalintii lixaad oo xiriira fariin muuqaal ah oo uu sii daayay waxa uu ku sheegay in dadka degan Kyiv ay u baahan yihiin gurmad dhan walba ah waxaana uu tilmaamay in haba yaraatee ilaa hadda aysan gabaad rasmi ah haysan sababtoo ay tahay meelihii yaraa dadka waa ay ka badan yihiin
waxa uu sheegay in tani ay u muuqanayso xoogaha dayac in uu jiro, laakiin waxa uu ku celceliyey in mar walba diyaar ay u yihiin inay arrimahan wax ka qabtaan kadib wax kasta oo Kiev ay u adkeysatay. tani waa wax aan la aqbali karin, ayuu yiri madaxweynaha Ukraine, isagoo ku tilmaamay dadka taagan guryaha hortooda in ay u baahan yihiin meel ay gabaad ka dhigtaan oo ay ku hoos jiraan si ay nafis u helaan. Zelensky iyo duqa magaalada Kiev Vitali ayaa hore ugu baaqay in xal laga gaaro dhibaatada hoyga, maadaama duulaanka Ruushka maalmahan dambe uu si xoogan ugu socdo dhanka caasimadda Kiev. dhinaca kale, kulan uu la yeeshay taliyaha guud ee Ukraine, Zelensky waxa kale oo uu sheegay in taliska ugu sareeya uu kala hadlay dhammaan tafaasiisha la xiriira nidaamka difaaca hawada ee dalkiisa. waxa uu sidoo kale amray in warbixin sirdoon oo dhammaystiran laga soo saaro wadamada Ruushka ka caawiya kordhinta wax soo saarka gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. madaxweynaha Ukraine ayaa ku baaqay baahida loo qabo in fiiro gaar ah loo yeesho jiidaha hore ee dhammaan safka dagaalka ee Ukraine. waxa uu tilmaamay in hadda uusan ka hadli doonin faahfaahin dheer ah, isaga oo carabka ku adkeeyay in waxa uu ku tilmaamay falalka firfircoon ee askartiisa ay ka hadli doonaan waxa looga baahan yahay, taasoo kala jeedo furmaha hore ee dagaalka in isbedelo laga arki doono. geesta kalena, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo shir gudoominayay kulanka caadiga ah ee golaha ammaanka ee Ruushka ayaa ku eedeeyay kuwa uu ku sheegay inay yihiin cadowga ay isku dayayaan inay khalkhal geliyaan xaaladda ka jirta gudaha Ruushka, waxaana uu sheegay in Moscow aanay ogolaan doonin in arrintaasi lagu sameeyo. geesta kale, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu sheegay in waqtigu cadeeyay in waxa uu tilmaamay ama ku tilmaamay gardarada Ruushka ee ka dhanka Ukraine ay ku fashilantay si xeeladaysan, isla markaana Moscow ay la kulmi doonto dhibaatooyinkeeda muddo sanado ah. Blinken oo shir jiraa'id ku qabtay caasimadda Vilnius ee Helsinki ayaa intaasi ku daray in Putin uu sanado badan isku dayay in uu kala gooyo dalalka reer galbeedka, wuxuuna sheegay in hadafkiisu ay cadaatay kadib markii uu bilaabay dagaalka ka dhanka ah Ukraine. Jimcihii, Blinken ayaa booqasho ku tagay Finland oo xuduud la leh Ruushka oo dhawaan ku biirtay ururka NATO ee waqooyiga Atlantic. Blinken waxa uu diiday xabad joojin kasta oo aan ku habboonayn Kiev, isaga oo carabka ku adkeeyay in sii wadida hubeynta Ukraine iyo xoojinta awoodeeda ay tahay habka kaliya ee lagu gaari karo nabad dhaba. sida muuqata hadda, Ruushka iyo Ukraine dhulka ay isdhigayaan, oo Ukraine waxa ay bilowday in dagaalkii furimaha ay ku bedelato inay weerar gaadma ku qaado dhulka Ruushka, gaar ahaan dhulka u dhow ilaa Moscow ay ku weerarayaan hadda diyaarado dagaal oo aan duuliye lahayn, taasoo keeni karta in xiisadda ay cirka isku sii shareerto. madaxweynaha Ruushka Putin waxa uu sheegay in mar walba diyaar u yahay dadkiisa iyo dalkiisa inuu difaaco, sidoo kalena tallaabo walba ama hal gantaal oo Ukraine ka yimaada laga shalaayi doono. waxaana weli qorshaha uu yahay in duqeymaha ay ku sii socdaan caasimadda Kiev, iyada oo sidoo kalena caasimadaas uu doonayo Putin in ay noqoto lama degaan, mar haddii caasimadiisii iska badbaayay xataa aqalkii Kremlinka lasoo weerarayo. waxa uu doonayaa isaguna in magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine dhammaantood ay noqdaan kuwa lama degaan ah oo dadka ay ka cararaan, laba qofood oo isku fiirisana la waayo. aragtidaada daawade qaybtoos commentiga noogu mahadsanid. barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ka daawanaysan Markhaati TV qaybtoonaga intaa barnaamijkan xigeentan ku kulmayno. nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.